السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضية الدكسية هرسات مeel kasta ay joogaan waa in salaamantiin waxayna halkan sii wadayna hadii ay ilaa 10 imtixaanaha ahaa ay nagu talagalay arday waliba halku joogay inay ku gaarsiino waxaynu eegaynaa maadada xisaabta ee fasalka shanaad isugeey waxaynu soo socday jajabkii marka isugeeyn isu qaybinta jajabka ayaynu ka bilaabaynaa jajabka caadiga marka la isu qaybinayo isu qaybinta markaan sameynayno waxaan qaybta hore sideeda isaga soo qaadanaynaa qaybta hore sideeda isaga soo qaadanaynaa calaamada isu qaybintana waxaan u bedelayaa isku dhufasho qaybta dambena waan kala rogayaa tii hooseysiina waan sareysiinay tii sareysiina waan hooseysiinaya marka shanta xagga sare tagaysa saddexduna xagga hoose imanaysa inta markaan sameeyno de waa isku dhufashadana labada sarena waa la isku dhufan jiray labada sarena isku dhufanaya labada hoosena waa la isku dhufan jiray iyaduna waa 9 soo saas kaga shaqeysan tahay taas qaybta labaad markay noqoto xabada labaad baan u jeedaa inta waa iska soo qaadanaysa sideeda iska soo qaadanaysa inta sideeda marka iska soo qaadato tan waxaad u bedelaysaa isku dhufasho labadaana waad kala rogaysaa tii sareysay baa hooseynaysa tii hooseysayna way sareynaysaa labada saraad marka isku dhufanaysaa waxa weeyaan labada saraad haddii isku dhufato waa 5 iyo 10 labada hoose haddii isku dhufato 7 iyo labadana waxa weeyaan 4 iyo 10 soo taana saas kaga shaqeynaysaa teenan kale marka qaybtan kale u nimaadno maanta waxaan bilaabaynaa qaybta labaad ee jajabka dhafan hadii la xidhan ku xigsiinayna maanta qaybtaasi jajabkii caadiga habeen isu geynta jajabka dhafan hadaba markay noqoto jajab dhafani waxa weeyaan jajab markii hore saas ay jajabkeenu qaabka noocaas ah laakiin hadii horgalayaal ay meesha yimaadaan baa la yiraahdaa jajab dhafan marka koowaad horta dhafnaanta ka saar isagana isu geyn ilaa isu qaybin baynu eegaynaa taa iyo taas isku dhufanaysa saad uga saarto taa iyo taas isku dhufanaysa hada arday u fiirso waxa weeyaan 4 waxaad u geynaysaa taa kale ee xagga sare taalo 3 waxa weeyaan 7 waxaad u qaybinaysaa hadana tii u qaybsaneed baad u qaybinaysaa eeg taa iyo taas isku dhuftay taana waan u geeyay tii u qaybsaneed waan u qaybiyay hay isu geynta iska soo qaado taaya taas isku dhufanaya waa 10 labadaana u geey waxa weeyaan 12 shantii u qaybsaneedna mar labaad baad u qaybinaysaa inta marka sameeyso waa jajab isu geeyna oo hooseyaashiisu kala duwan yihiin taa waxaynu sameyn jirnay marka hore inuu soo dhigano hadii hooseyaashu kala duwan yihiin wixina ay tahay isu geyn iyo kala goyn labadaas un baa qaabkan la sameeyaa taa iyo taas aynu isku dhufanayna labada hoose isku dhufanayna marka laba markaas 5 ku dhufato waxa weeyaan 10 shanta iyo waxa isku dhufanayaa 7 waxa weeyaan 5 iyo 30 oo loo geeyay labada iyo 12 kana isku dhufanaya waxa weeyaan 4 iyo 20 hay labadaas sare isu geynaya marka waxa weeyaan 50 iyo 9 5 iyo 30 iyo 4 hadda isu geyso 50 iyo 9 loo qaybiyay 10 u qaybsanaa isna saasad kaga shaqeynaysaa qaybtan kale marka aad u timaado waa kala goynta jajabka dhafan kala goynta iyadana waxa sameynaysaa horta dhafnaanta ka saar yaani horgalaha ka saar horgalaha saad uga saarto waxa sameynaysaa 4 iyo 3 isku dhufanaysaa waa 12 labadaana waad u geynaysaa waa 4 iyo 10 oo loo qaybiyay 4 u qaybsanayd oo laga jaray 4 iyo labadaas isku dhufanaysaa waxa weeyaan 8 saddexdaana waad u geynaysaa waxa weeyaan 11 oo loo qaybiyay 4 jajab hooseyaashiisu isku mid yihiin oo kala goyna ama isu geynana waxa la sameyn jiray labada hoose isku mid ka soo qaado labada sareeyana kala jar marka 4 iyo 10 hadaad ka jarto 11 waxa soo hadhaya 3 soo taasina saas kaga shaqeysanta tan kale markaan u nimaadno waa kala goyntan iyaduna waxaynu leenahay jajabka dhafan uu leeyahay 3 iyo 3 isku dhufanaya waxa 5 iyo 10 afartaan waxaan u geeyay waxa 9 iyo 10 oo loo qaybiyay 5 u qaybsaneed oo laga jaray labada iyo halkaas isku dhufanaya waxa 2 labadii baan halkaas sare u geeyay waxa 3 oo loo qaybiyay labadii u qaybsaneed inta markaan helo hooseyaashu way kala duwan yihiin waana kala goyn marka waxa sameynaya labada hoose isku dhufanaya waxa 10 labada sarena taa iyo waxa isku dhufanaya labada iyo 9 iyo 10 isku dhufanaya laba iyo 9 iyo 10 hadda isku dhufato 8 iyo 30 ha 9 iyo 10 iyo laba marka isku dhufato 8 iyo 30 labada isku dhufanayaan 8 iyo 10 halbeedseta labada isku dhufato 8 iyo 30 waxa 8 iyo 30 oo laga jaray shanta iyo 3 isku dhufanaysa waxa 5 iyo 10
hadhow marka halkaas la tagaysa waxa leedahay 8 waxaad ka jartaa 15 8 5 ka jar waxa weeyaan 3 allah 3 laba ka hal ka jar baan jeeda waxa weeyaan 2 waxa weeyaan 3 iyo 20 loo qaybiyay 10 taasina saas ku dhanta halkaas taana kaga shaqeynaysa waxaan u tageynaa qaybteena u dambaysa isku dhufashada jajabka dhafan marka la isku dhufanayo isagu iska jilicsan yahay marka walba marka jajabka isku dhufashada noqoto aad bay u jilicsan tahay waxaan sameeynaa horta horgalaha inuu ka saarayna labada iyo waxaan isku dhufanayaa labada waxa weeyaan 4 tiban saddexda u geynaya waxa weeyaan 7 oo loo qaybiyay 2 oo lagu dhuftay saddexda iyo halkaas aan isku dhufanaya waa 3 saddexdii baan labada sare u geynaya waxa weeyaan 5 tii baan hadana saddexdan u qaybinaya saddexdan u qaybsaneed baan mar labaad u qaybinaya marka halkaas soo gaaro waa isku dhufasho labada sare toos isugu dhufo waxa weeyaan 5 iyo 30 labada hoosena toos isugu dhufo waxa weeyaan 6 way jajabkeena marka waa ka sida uga shaqeysan maxaan raahday aynu soo koobnay waxa kaliya to inoo harsan waxa weeyaan isu qaybinta jajabka dhafan insha Allah iyadana hadii la helo xiisada dambe ku eegi doona marka hadii la helo casharka ku xigeenta isugu iman doona waxa leeyahay salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh horseed schools